ma jirto wax ka qiimo badan nafsadaada. Isdilku ma ahan xal oo dhibkii aad ka tagtay ma xalinayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada. Maanta waa 10 Sebtembar sanadku waa 2022. maanta oo kale waxaa loo asteeyaa maalinta ka hortagga isdilka adduunka. Isdilku waa in qof u bareero goynta nafsadiisa asagoo ka rajo dhigay gebi ahaanba noloshiisa. waxyaabaha keeni kara inuu gebi ahaan nolosha ka rajo dhigana waxaa laga yaabaa inay ka mid yihiin ceebta iyo fadeexooyin ka dhalan kara dhibaato uu soo sameeyay amase wax uu muddo dheer ku taamayay oo uu waayay, sida qof uu aad u jeclaa qofku inuu waayo ama inuu waayo hanti oo muddo badan soo tabcayay. waxaa la arkaa sababahaasi inay dadka qaar isku dilaan, balse haddii aragtid qof isdilay waa qof dareenkiisii iyo iimaankiisii xakamaynta ay xargagoosteen laguna xisaabiyo dadka dhimirka ka xanuunsanaya. haddaba maanta oo kale 10 Sebtembar waxaa dunida laga xusaa ama loo asteeyay maalinta ka hortagga isdilka adduunka. annaga ka Soomaali ahaan iyo ka bulsho muslim ahaanba waxaa laga maarmaan ah inaan bulshadeena ka wacyigelino qiimaha ay leedahay naftu iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara isdilka, ciqaabta xagga alle qofka uga imaanaysa iyo waxyaabaha uu kala kulmayo maalinka qiyaamo haddii uu naftiisa gooyo. waa laga maarmaan in wacyiga bulshada markasta uu noqdo mid soo jeeda kana warqaba dhibka ka imaan kara waxyaabaha ay sameynayaan. ma jirto wax ka qiimo badan nafsadaada. waxaa laga maarmaan ah inaad ku dadaasho horumarinta naftaada iyo xasilinta naftaada. haddii culaysku soo wajaho noloshaada xag dhaqaale, xag jacayl, xagga sharaftaada iyo wax kasta oo dunida yaalla, ma jiraan wax u qalma goynta noloshaada. nafsadaada wax u qalmahay ma jiraan. taas waxaa ka sii daran, isdilku ma ahan xal oo dhibkii aad ka tagtay ma xalinayo, bal markaad isdisho waxaa ku bilaabanaya ciqaabta iyo jaxiimo ka daran dhibkii aad ka cararaysay. waxaa la sheegaa in 703,000 oo qof ay sanad walba isdilaan aynu isku aqoonsadaan nolosha adduunka. maxay kula tahay dadkaas inay isku dilaan? ma kula taase in dadka Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin dadka isdila? haddaba jawaabta aan ku sheegay ha, bulshada Soomaaliyeed way ka mid tahay dadka isdila. sanadkii 2020kii WHO warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in dad gaaraya 1219 qof oo Soomaaliya ay isdishay sanadkaasi. kaalinta 29aadna ee Soomaaliya ka soo fadhiisatay wadamada isdilka ugu badan. 28 wadan oo kale ayaa nooga horeeya. bal cagsigeeda waxaan kaalinta kuwaad ku jirnaa dadka u leeanaya nafaqa darrida. sanadkaasi waxaa la sheegay 4825 qof oo Soomaaliya inay u dhinteen macluul ama gaajo. ka waran sanadahan dambe oo abaar ba'ani ay jirto, dadku intaas way ka badan yihiin. warajeenaya qof walba oo naga mid ah inuu qofka kale oo caawin karo oo caawiyo. kaba soo gudubee maadaama aan nahay ummad muslima, waxay ahayd ficilkan guracan ee isdilka in gebi ahaanba laga waayo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. aniga ka samiir ahaan waxaan garanayay 6 qof oo isdishay. 4 ka mid ah rag ay ahaayeen, 2 ka midna dumar ay ahaayeen. sababo kala duwan ayay isku dileen. qaar waxay isku dileen dhaqaale ay haysteen oo ay waayeen. qaar waxay isku dileen waxbarasho ay baranayeen lacagta iskuulka oo ay waayeen. qaar waxay isku dileen sababo kala duwan. inkasta oo dumarka labada ah oo aan aqaanahay la ii sheegay in uu jin dilay, laakiin waxa ogaataa markasta oo qof isdilaahay ma ahan qof miirkiisu joogo, waa qof maskax ahaan xadkii normalka ahay ka baxay. haddaba maxay kula tahay in dadku isku dilaan? midda kale, ceeb iyo dhib kasta oo taagan ma kula tahay inuu xalismayo hadduu qofka isdilo? waa maya. muhiimadda nolosha iyo sida qurxan ee ay tahay inaad u noolaato, lambar 1 ku xirnaaw Allah subhanahu wa ta'ala. wuxuu ku farana sameey, wuxuu ka reebana ka har. tan labaad, jeclaaw naftaada. markaad adigu is jeclaato ayay dadka kale ku jeclaan karaan. 3, naftaada daacad u ahaw. qof naftiisa oo hagar bixi waayay ma jirto wax ka weyn oo awood. run ku noolaaw oo nafsadaada waxaadan ahayn ha ka dhaadhicin, maxaa yeelay maalin ayay ka hor imaan doontaa beentu oo aadan awoodin meel aad uga baxsato. ugu dambeyn, xushmee naftaada. markaas ayaad ogaa doontaa heerka aad gaarsiisahay iyo muhiimadda ay naftaadu ku leedahay. mawduucina maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeeyay. wixii su'aal oo qabta community ugu la wadaag, wixii fikrana la wadaag. aad ayaad u mahadsantahay.